kulan ay isugu yimaadeen dhalinyaro ku mideysan magaca jaaliyada gobolka Hiiraan ee ku nool jasiiradda Malta ayay si weyn ugu taageereen gudoomiyaha cusub ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan mudane Cabdirasaaq Maxamed Axmed Caato oo xilkaasi u magacaabay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdifataax Xasan Afrax dadkii ka soo qayb galay madasha munaasabada oo u badnaa dhalinyaro ayaa sheegay in horumarka degmada Matabaan ay ragaadiyeen colaado iyo isqabqabsi soo noqnoqday taasoo ay degmadu kala siman tahay degmooyinka kale ee dalku ay saameeyeen burburkii uu muddada dheer dalku ku soo jiray kaasoo iminka u muuqda in laga gudbayo Soomane Cabdi Indhacade oo kamid ahaa dhalinyaradii ka hadashay goobtaasi ayaa yiri ruuxantii degmadu marxalad badan ayay soo martay hawlo badan ayay soo martay barnaamij badan soo martay maanta waa Ilaahay mahadiis in nin degmada ku dhashay kusoo barbaaray kusoo waxbartay inuu maanta ku guuleysto anagoo ah dhalinyarada degmada Matabaan waxaan leenahay Allah ku guuliyo waa ruuxantii waa wax aad ugu farxanay dhammaan dhalinyarada degmada Matabaan ee qurba joogta meel kasto ay ka joogaan qurbaha Afrika Europe Asia Latin meel kasta ay joogaan ruuxantii waa wax aad ugu farxanay marka aan maqalnay inaad noqotay gudoomiyaha degmada Matabaan sidoo kale Mustafa Xasan Cusmaan oo kamid ahaa dhalinyaradii ka hadashay goobta ayaa isna dhankiisa si weyn u soo dhaweeyay kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin xilligan isbedelka ka jira guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka Hiiraan isagoo ugu baaqay gudoomiyaha cusub ee degmada Matabaan Cabdirasaaq Maxamed Axmed Caato inuu noqdo hoggaan lagu daydo oo cadaalad sameeya dadka uu mas'uulka u yahay ee colaadu ay ragaadisay hadeertaan marxaladda wadanku waxay maraysaa xilligii dhalinyarada oo ay wax wada qaban lahayd guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan hadeertaan degmooyinkiisa iyo madaxda gobolka intaba dhalinyaradii hadda ayaa mas'uuliyadiisii la wareegtay marka aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa doorashadaas dhalinyarada oo gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Matabaan Cabdirasaaq marka Cabdirasaaq waxaan leenahay xil aad iyo aad u culus ayaad haysaa wax badan iyo isbedel fara badan ayaa lagaaga baahan yahay xilligii waa laga soo gudbay oo la dhihi jiray dhalinyaradu waxba ma qaban karto hadda wuxuu marayaa wadanku xilligii dhalinyaradu ay wax qaban lahayd horumarkoodii waa la arkay waxtarkoodii waa la arkay marka waxa la rabaa gudoomiyaha gaar ahaan Cabdirasaaq waxaan si leeyahay gobolka degmada wax u soo baratay oo ku dhalatay ayaad maanta xil u haysaa waxa la rabaa inaad ififaalihii hore mid ka sii wanaagsan inaad muujiso ayaa rabnaa kulley xilka aad haysana waxaan leenahay anagu Ilaahay kugu asturo kulley qowl iyo ficilna waa ku taageeri doonaa hadii Ilaahay idmo waxaan ku leenahay xilka aad hayso xil aad u adag waaye mas'uuliyadiisana kulley waxaad u qaaday inaad ka soo bixi karto anaguna waxaan ku rajeynaynaa inaad ka soo baxdo hadii Alla idmo dadweynaha reer Matabaan meel walba ay joogaan kuwa wadanka gudihiisa jooga Soomaaliya iyo kuwa wadanka dibadiisa joogaba intaba inay saakay ay garab istaagaan gudoomiyaha la magacaabay oo dhalinyarada ah magaalada ka soo jeedo dadweynaha saasaan leeyahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meel walba gobolada iyo degmooyinka intaba in loo dhiibo oo dhalinyarada oo yaani dhalinyaradu ay horumarka gaarsiiso wadanka wadamo walba hadda wadamada aan joogno dhalinyaradoodii ayaa wax walba gaarsiisa kulli odayaashu kaalin wanaagsan ay ka soo qaateen meel fiican ay keeneen meeshii fiican ay odayaashu keeneen hadeertaan dhalinyarada ayaa ka sii wadi doonto isku soo wada duubo degmada Matabaan oo ku magac dheer Matabaan Garoore ayaa ah magaalo ku taala dhanka waqooyi ee gobolka Hiiraan una jirta 75 kiiloomitir magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan Matabaan waa magaalo taariikh fac weyn leh waxaana la aasaasay dhamaadkii qarnigii 19aad bulshada degmada ku nool waxay tiro ahaan ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 30,000 oo qof waxaana ku xiran degmada dadka xoololeyda iyo beeraleyda ah ee tuulooyinka ku dhow magaalada ku nool Matabaan waxay leedahay hoteelo ay ku nastaan dadka safarka ah iyo suuq weyn oo lagu iibiyo xoolaha nool caanahooda iyo subagooda iyo sidoo kale suuqyada dharka maciishada kala duwan oo maalin walba ay u soo dukaamaysi tagaan dadka xoololeyda iyo beeraleyda ah iyo kuwa deegaankuba degmada Matabaan waxaa xilligan gacanta ku haya dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo marar kala duwan ay gacanta u gashay ururada Al-Shabaab iyo Ahlu Sunna Axmed Nuur Ibrahim